gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ka aqbalay xogayaha arrimaha carabta iyo wadamada islaamka ee xisbigaasi Axmed Safina oo soo gaarsiiyay warqadiisa iscasilaada. Axmed Safina ayaa sida uu ku sheegay qoraalkii ku dugnaa warqadiisa iscasilaada shaqada uu hakiyay kadib markii uu bilaabay waxbarasho sare, taas oo xusay in ay caqabad ku tahay iskuwadka hankiisa waxbarasho iyo xilka uu xisbiga mucaaradka wadani u hayay. qoraal jawaab celin ah oo uu soo saaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo soo gaaray xafiiska wararka ee telefishinka Saba ayaa waxa uu ku sheegay in ugu horeyn uu ka aqbalay Axmed Safina iscasilaadiisa, waxaan u rajeeyay in uu guul ka gaadho geedigiisa waxbarasho. dhinaca kale waxa uu gudoomiyuhu uga mahad celiyay xogayihii hore ee xiriirka wadamada carabta iyo dalalka islaamka xisbigaasi intii uu shaqadaasi hayay, dadaalkii iyo firfircoonaantii uu la yimid. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Sab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino. meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Sab TV, sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com. fadlan nagu xidhnow. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.